magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal in dhaweydba waxa ku soo kordhayay garoonka casriga ah gaar ahaan kuwa la saaro rooga macmalka garoomadan ayaa inta badan waxa ku ciyaara dhalinyarada iyo sidoo kale dadka xiliyada qaar shaqaysta waxa sidoo kale jira garoomo iyagu siigo iyo board leh kuwaas oo ay dhalinyarada qaarkood ay kubadda ku ciyaaraan labadan garoon ayaa wax farqi weyn u dhaxeeyo garoonka rooga macmalka la saaray ayaa isagu waxa uu yahay mid lacag ahaan lagu ciyaaro kubadda cagta oo ay kooxuhu isa soo urursadaan halka garoonkana uu yahay mid ay qofka ciyaartoyga ahi u soo diyaar garoobayo inuu kubadda u ciyaaro haddaba telefishinka Somali Cable TV ayaa u kuurgalay faraqa u dhaxeeya labadan garoon ee rooga macmalka uu saaran yahay iyo garoonka siigada iyo board kale ee ay ku ciyaaraan dhalinta ku nool magaalada Boorama ayaa ugu horeyntii waxa uu u kuurgalay garoonka lagu ciyaaro kubadda cagta gaar ahaan ka uu saaran yahay rooga macmalka waa kuwan qaar kamid ah dhalinyarta ku ciyaara garoonka rooga macmalka uu saaran yahay oo iyagu ka waramaya garoonkani iyo faa'iidada uu leeyahay horta different aad waxana u dhaxaya labada garoon garoonka taqaana boorka markaad ku ciyaarayso kale waxa laga yaabaa taqaana inaad wasakh adigoo ah aad xaafada jirto kale laakiin rooga adoo iska dhigday oo si fiican taqaana u ciyaaray oo laakiin nadiif ah still ay xaafada tagaysa anigoo ah dadka garoonka ku ciyaara maantana daawanaya qolada ku ciyaaraysa hadii aan fikirkayga ka dhiibto labada garoon isbarbardhigooda garoonka roogooda aad uga faa'iido badan yahay garoonka maxaan ku dhahdaay ciida ah sidaas darteed garoonka ciida aan ku ciyaarnay kana waan ku ciyaarnay jiilaalka oo kale hadaad eegto garoonka ciida lagu ma ciyaari karo dhibaatadiisu iska fara badan tahay sidaas darteed hadii aad ku ciyaarto garoonka rooga sportigiina wada helaysaa wax maxaan ku dhahdaay ka soo gaarayo oo dhibaato ka soo gaaraysa geesta kale telefishinka Somali Cable ayaa sidoo kale waxa uu kuurgalay mid ka mid ah garoomada ay dhalintu ku ciyaaraan gaar ahaan kaale siigada iyo boorka ee iyagu ku yaala seerayaasha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal kuwaasi oo maalmaha Jumcaha iyo sidoo kale Khamiista gelinka dambe iyo gelinka horeba kubadda ay ku ciyaaraan iyaga laftirkoodu dad kala duwan ayaa garoomadaasi ku ciyaara waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ku ciyaara garoomada siigada iyo board kale kuwaas oo iyagu ka warbixinaya aragtidooda ku aadan garoonkaasi haddaan ka hadlo fikirkayga in labada garoon ee imika casriga soo baxay rooga leeyahay iyo kan ilaa ay lagu ciyaari jiray abiidina lagu ciyaari jiray ciida anagu waxaan nooga xaraaro fiican oo nooga islaan fiican ka imika ku ciyaarin rooga ka dhulkan ku ciyaarano 1 hour lagu ciyaaro $1 daawac uma arko kubad inaad xaraaradaadii kubad aad soo bandhigi kartid ay ka imika ku ciyaarayno ayaan nooga fiican oo nooga tayo fiican oo kubad fiican nooga dhigi fiican sababtu maxay tahay aad uga doorbiday rooga garoonka sababta laba mas'alo laga doorbiday laba mas'alo oo ah 1 hour صح kubadda aan xoog baan u jecelahay 1 hour waxa aan xaraarahan aan ku cuntamayni weeyaan oo qiyaaso lagu sugayo 20 baa haray 5 baa haray rubuc baa haray mid baa haray ka afartan soo galna 6 bar ka baxayno ayaa naga fiican isku soo wada duubo waxa jira farqi u dhaxeeya garoomada kala duwan ee ku yaala magaalada Boorama hase ahaatee waxa jira garoomaha tan ku soo badanaya magaalada Boorama oo la saaray rooga macmalka tan waxay ka dhigan tahay horumarka Boorama ay ku si talaabsanayso marba marka ka sii dambeeya waa nuux kadiye TV-ga caalamiga ee Somali Cable TV magaalada Boorama